sida aad maqlaysaan halkan waa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Maanta waa ay ka duwan tahay maalmihii hore kadib markii maanta Muqdisho ay ragaadiyeen dagaalo iyo dibadbaxyo kaasoo ay dhigayeen qaar ka mid ah midowga murashaxiinta oo la socda qaar ka mid ah taageerayaashooda. Magaalada Muqdisho ayaa saaka ku waaberisatay gebi ahaanba mid bandow ah, mana jirin gaadiid isticmaalayay wadooyinka qaar. Sidoo kale wadooyinka qaar ayaa loo diiday inay maraan shacabka lugtooda ay maalaya. Qaar ka mid ah midowga murashaxiinta ee fadhigoodu yahay hotelka Jazeera ayaa saakay waxa ay socdeer ay ku soo mareen inta u dhaxaysa hotelka Jazeera oo ku dhow garoonka diyaaradaha aadan cadde iyo isgoyska kilometer 4 waxaana la sheegay markii ay ku soo dhawaadeen isgoyska number 4 in halkaasi ay ka bilowday rasaas xoogan ay furayeen ciidamada haramacad oo garabsanaya kuwa kumaandooska dowladda Soomaaliya iyo ilaalada qaar ka mid ah murashaxiinta waxaana la sheegay in rasaastaasi waxyeello ay ka soo gaartay dadka dibadbaxyaasha banaanbaxan oo ay hogaaminayeen ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre gudoomiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed nabadoon Maxamed Xasan Xaad xildhibaanada Mahad Salaad iyo Cabdiraxmaan Odawa ayaa waxa markii dambe la sheegay in lagu kala eriyay rasaas kadib markii ciidamada haramacad oo garabsanaya kuwa kumaandooska rasaas waaweyn ay ku fureen dibadbaxyaashaasi Xasan Cali Khayre iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa waxa ay ku eedeeyeen arintaasi inuu ka dambeeyo madaxweynaha muddo-xileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo arintan ayaa soo bilaabatay wax yar uun ka hor saqdi dhexe ee xalay kadib markii ciidamada haramacad ay weerar ay ku qaadeen hotelka Maa'ida oo ku dhow xarunta taalada Jildizason oo lagu balansanaa maanta inuu ka dhaco dibadbaxaasi halkaasi ay ku sugnaayeen madaxweynayaashii hore ee dalka Xasan Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo gudoomiyihii hore ee golaha shacabka Shariif Xasan Sheekh Aadan waxaana la sheegay in halkaasi khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ay ka soo gaartay dhinacyadii dagaalamay qaar ka mid ah midowga musharaxiinta ayaa ku eedeeyay isla markaana waxay sheegeen in arintaasi loogu gol lahaa in ayaga lagu qaarajiyo balse ay fashilmeen midowga murashaxiinta gaar ahaan madaxweynayaashii hore ee xililka ugu soo qabtay Soomaaliya ee Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif ayaa waxay sheegeen in ay fashiliyeen isla markaana ay ka hortageen weerarka ay ku soo qaadeen sida ay sheegeen ciidamada dowladda ee loo soo adeegsaday ee dusha ay u saareen madaxweynaha waqtiga uu ka dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haddaba arintii maanta dibadbaxyada iyo rasaastii ayaa waxaa ka hadlay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ku eedeeyay madaxweyne Farmaajo ayaa waxa uu yiri raggan halkan taagan waxaan qabanay shirkaas jaraa'id wuxuu ku saabsanaa in labadii madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ka horeysay iyo gudoomiyihii baarlamaanka ee Soomaaliyeed hore saddexdooda lagu weeraray hotelkii ay deganaayeen iyadoo lala damacsanaa dil maanta waxaa ku xigtay in murashaxiintii iyagoo bannaan baxaya oo adduunyadu ay fiirsanayso la soo xabadeeyay xabadihiina Allah caafiyo inta dhimatana Allah u naxariistay dad Soomaaliyeed ay ku waxyeeloobeen isla xabadihii dhinaca kale ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa sheegay in arintaasi loogu gol lahaa in ayaga lagu qaarajiyo waxaana dusha u saaray madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo muddo-xileedkiisu u dhamaaday Xasan Cali Khayre oo murahaasi ka hadlayay inuu yiri boorkii madaafiicda ay ku rideen ayaa gubanaya hadda Soomaaliya waxaan rabaa inaan markhaati gashado maanta meesha aan taaganahay anigoo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya soo kama digin Soomaanan dhihin haddii la isku dayo in xukun la boobo haddii doorashada aan heshiis lagu noqon haddii la isku dayo in kaligiita la isnoqdo in dhibaatadanu dhaxayso habeenkii aan ummadda Soomaaliyeed u tanaasulay waxaan shacabka Soomaaliyeed u sheegay inaanan rabin inaan qayb ka noqdo dhibaatada ummadda ku soo socota haddii dariiqan lagu sii socdo meeshii baan taaganahay aan ka digay anigoo xukunka jooga iyo anigoo dibadda ka ah meeshii hadda dal isku soo wada duuba shacabka ku nool magaalada Muqdisho ayaa wali walaac ka muujinaya arinta qasan ee ka taagan magaalada Muqdisho xilli musharaxiinta ay wacd ay ku mareen inay sii wadayeen dibadbaxyada iyo dowladda federaalka oo dhigaha ka furaysanaysa baaqa kaga imaanaya midowga musharaxiinta oo ku aadan inay dibadbaxyo nabadeed ay ka dhigtaan magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya isku soo wada duuba xaaladda magaalada Muqdisho ayaa caawa degan mana jirto wax dagaalaha ee wali ka dhacaya magaalada Muqdisho walow laga cabsi qabo in maalinta biritada dibadbaxyada ay sii socdaan isla markaana dhibaatada ay sii badan karto